السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. لما أصحاب تقالق سولوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله تعالى ما أنت وحين كهد لدونا أما إنه سوق آدن دونا قصة إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كقور رمي. qisadaasi waxaynu ka soo qaadan doonaa mowqif aad u cajiib badan oo ku tusinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa iyo qudradiisa iyo sida uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu shay dhinac u socday dhinaca kale uu u bedelayo. waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ballan uu u qaaday hooyo dhashay ilmo yar. إلهنا سبحانه وتعالى وحو يدي فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرددناه إلى أمه وحنوع لنيه يدي وقصد نبي الله موسى عليه السلام مركي ولا شيء كي تقر عينها سيأي أبو إن دوكستو المهدير ولا تحزن أو آني أمرغن ولتعلم أو أي أوغاته أن وعد الله حق إن بلنقاتك إلهي ويهيدب. قصدنا موقف كاينو سوق هذا وهالكاسي أن وعد الله حق إنو بلنقاتك إلهي دبيهي ولكن أكثرهم لا يعلمون بإلهي. laakiin dadka badankoodu ma garanayaan. ballankaa uu ilaahay subxaanahu u qaaday muxuu ahaa? sidee baanu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu oofiyey? waa qisada aynu maanta ka hadli doono. ناجيت ربي في المسرة والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم. ناديت ربي والأسى قد غالني. فرعون لعنة الله عليه وحا بقر كاها مصر وأوكو كبري وانا ويسيس الرئيسيي qayb ka mid ah dadka uu xukumo uu gumaysan jiray, afcaasha ugu xunxunna wuu ku samayn jiray. qaar ka midana kor ayuu u qaaday oo meel sare ayuu gaadhsiiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo arrinkaa inooga warramaya ayaa ilaahay wuxuu yidhi inna fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiyaca yastadcifu taa'ifatan minhum يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إلهي وحي إن فرعون على في الأرض. فرعون نلقى يسكس الرئيسي أو كبري وجعل أهلها شيعا أهل كيدين وحو كدغي قيبه أي قيبيي يستضعف طائفة منهم koox iyaga ka mida waa uu dullaysanayaa. waxaanay ahaayeen reer banu Israa'iil. yudabbixu abnaa'ahum waxa uu gowracayaa inamadooda wayastaxyii nisaa'ahum hablahoodana wuu iska daynayaa. innahu kaana min almufsidiin waxa uu fircoon ahaaday kuwa dhulka fasahaadiya mid ka mid ah. gumaysi halkii ugu dambaysay ayuu ku sameeyey reer banu Israa'iil. haddii uu inan u dhashana waa uu ka gowraci jiray oo waa uu dili jiray. haddii ay inan noqotona waa uu iska dayn jiray. sababtana waxaa la yidhaahdaa waxa uu ku riyooday ama uu faashaday, kadibna waxaa la yidhi mulkigaagan iyo boqortooyadaadan waxaa kaa qaadi doona nin ka soo bixi doona reer banu Israa'iil. sidaa awgeed si uu arrinkaasi uga hortago ayaa wuxuu samaynayey haddii inan u dhashoba waa uu gowracayay oo waa uu dilayay. haddii ay inan noqotona waa uu iska daynayey. waana gumaysi halkii ugu xumayd ee ugu darnayd ayuu gaadhsiiyey. iyadoo uu xaalkaasi ku hayo oo uu dhibtaasi uu ku hayo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doonay
in dadka uu saa u gumaysanayo ee uu dhibtaa ku hayo inuu arlada dhaxal siiyo oo ay mulkigiisa la wareegaan noqdaan kuwo lagu daydo oo madax ah dhulkana gacanta ku dhiga fircoonna tusa waxaanuu iska ilaalinayo indhihiisa oo shana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونريد وحان دونينا بإلهي إساقو فرعون نبكا كهيا أنقنا وحان دونينا أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إنانو أنم عينه كوا دولك لغو ضعيف صدي ونجعلهم أنو كدقنو أئمة كوا لغو ضيدو ونجعلهم أنو كدقنو الوارثين كوا دولك دحلية ونمكن لهم أنو مكنسينو نقعنت أقلنو في الأرض دولك مصر أنو قعنت أقلنو ونري أن تصنب إلهي وحن دوننا يكرين أن تصنه فرعون وهامان فرعون يهامان وجنودهما يلبدو دا بعيدا كودا منهم أن كتصن كون ضعيف سنايو ما كانوا وحي أهايين يحذرون كويس كإلالية أو كدكتونا دبا إلهي سبحانه وتعالى هل كامرك أي مريسو fircoonna uu qoomkii reer banu israa'iil uu gumaysanayo ee uu ubadkooda dhashay laynayo ayaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam hooyadii ayaa dhashay way cabsanaysaa oo magaalada waxaa dhex maraya masar waxaa dhex maraya ciidamadii fircoon uu lahaa waxay daydayayaan ilmo yaroo dhasha haddii uu inan noqdo waa ay dilayaan waxay dhagaysanayaan sanqadha ama oohinta ilmo yar oo haddii ay maqlaan waa ay ku soo leexanayaan kadibna way eegayaan haddii uu inan noqdo qoorta ayay ka jarayaan hadduu inan noqdona waa iska daynayaan hooyo markaa ilmaheedii yaraa dhashay ilaahay subxaanahu wa tacaala kalkacaylkii uu ku beeray iyo naxariistii u sida ilmaheeda yar oo la cabsanaysa oo la baqaysa ayaa ilaahay inooga warramay waxaana uu yidhi وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بإله وأوحينا إلى أم موسى موسى يدي وحان وحيون أن أرضعيه المهير ناس كسيه والناس كنوج فإذا خفت عليه هدي أدو عبسته وفرعون يعيد كيس أدو قبقته فألقيه في اليم وبقى كتور بإلهي وحي كلا عرريسة هلاك يدل بي كلا عرريسة وحا لقوي لهدنا هلاك كلا كسي تور فألقيه في اليم وبقى كتور الميرو إمي كذا شيء ووحبق بسنكرين وبقى سيهدنا كتور بإلهي سبحانه وتعالى لكن إلهي سبحانه وتعالى بلن أي أقاضي وأنا إلهي سبحانه وتعالى وحول بأ لها أودويا وحاو إلهي سبحانه وتعالى وحكل حبد بادين كرا هلك أينو أرقنو إنو قفكو كهلاك سميو نبي الله إبراهيم عليه السلام إلهي وحو كبد باديي دب دحبرتن كيس أيو إلهي كبد باديي نبي الله موسى بيهاسي أيا إلهي كل حبد بادينيا وحلقوا يدي كتور المهن يربيه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إلهي وحو كيد أنك أيا كوسو علينا محل شاهدك أن قصة وسوق هذا وهالكاس إنا رادوه إليك بإلهي أنك أيا كوسو علينا المها غير أنك أيا كوسو علينا بإلهي وجاعلوه وحانو كدغينا من المرسلين كولا دري رسوش مد كاملة أيانو كدغينا بإلهي سبحانه وتعالى
ووقتي وفرعون ودنك وبقر كيهي عيدا مدي سنعي كشقينيان نبي الله موسى هو يدي حالة إلمها يركوها يساوي أذكتها هدي أي هايسته والأوغانية كدبنا إلمها يروى لقد ليا على الله هدي إلمها يرووصو نقضنا فرعون كي دينا يماها أو مرول بمقالدي وحا دحمر يعيدا كيسي أو باريا أو ميل والبباريا أو كأيغيا إنان أدى شيء ريبانو إسرائيل سيو أدلو isagoo ka cabsanaya inuu boqortooyadiisa iyo mulkigiisa uu noqdo kii ka qaadi lahaa bal haddaba sidee ayaa ilmaha yari ugu soo noqon doonaa hooyadii oo ay u haysan doontaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam hooyadii amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay fulisay ilmihii yaraana waxa ay ku riday sanduuq ayay ku riday kadibna waxa ay dhex dhigtay webigii niil ayay dhex dhigtay إلهي سبحانه وتعالى قدرة ديسا إيا حكمة ديسا إيا أود ديسا ميل فوق بإلهي موجينين لكن وحا لهرجي قصري فرعون بالهرجي إلهي سبحانه وتعالى وحو كير في سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه وحا هلي المه يرى آل فرعون أهل كيسي أيا هلي ليكون لهم سوء نقض عدوا مدعدو كواه وحزنا مرقوه إن فرعون وهامان وجنودهما فرعون يا هامان يلبدو دا عيدا كودو كانوا وحي أهايا خاطئين كوقفة أو قفكودا إيا خلدكودانا أبريرا وحالقي نبي الله موسى عليه السلام قصري فرعون وحا بودي ديي بوا المير إلهينا قدرديس وحا أودلدقي قصري سهرتيس قريقيسي بالا كيني وحا أركتي قبردي وفرعون قبي شري ولو رنشري آسية بنت مزاحم أو مؤمنة أهيد المهي يرى مركي أي أركتي أيا إلهي سبحانه وتعالى جعيل يحب إلهي أقلي سبحانه وتعالى فرعون وحو أمر كبحنا يا إن إلمها يرلدلوه لكن إيدا أيا إسكهر تاكتي أو تري إلمها يرلما تابنيوه لما ندليوه وحاني تري إلهي إسكو إنوغو رميا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت وحيتري امرأة فرعون قبردي فرعون وحيتري قرة عين لي وحاو المهيري إيهي أنيقا عندك دوكسي إيا ولك أديقبا أنيقا إيا أديقبا وحاو المهيري إنويهي عندك دوكسي لا تقتلوه هدلين بيتري عسى أن ينفعنا وحبلغي إنو إن أنفعه أو نتخذه ولدا أما وحين كدغنا إنابا المير أو أين دلني أو كله أو أين كرسنينا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون يقو أن درين سنين أو أن قرنين بإلهي سبحانه وتعالى هلكي أي إسكهر استاكتي آسية بنت مزاحم إن إلمه يرى للدلوه أو أي تري وين كرسنينا هلكاسي أيانين كوهيسنينا فرعون حاسكيسي يا قبرديسي وأوديدي كريوايي وانا أوكيلي إن إلمه يرى أي كرسدان أو أي هيستان هلكا مركا أي مريسو أي إلهي سبحانه وتعالى وحو إنه رميا نبي الله موسى عليه السلام هو يدي حالة أي كسوغان تهي أي كول ولسن تهي المهدي يرى أي وبيغا كتورتي إلهينا سبحانه وتعالى وحو يدي وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وحاو النقضي أما أوابريستي قلبك نبي الله موسى هو يدي فارغا مدمرا
كمرا وحان موسى هين أيو نغضي قلبي جيدي إن كادت لا تبدي به وحا أي كل واتي إني موجسته أو أي شيغته لولا أن ربطنا على قلبها إنانو قلبي جيدا حدنه هدانو تشري لهين ويموجسا لهين لتكون من المؤمنين محانا أنو قلبي جيدا وحدنا يبا إلهيري سيأي النقطه وقمد نقطه مؤمنين تمد كمده markii ay saa uga walwashay ee uu waagi bariyay ayaa waxa ay nabiyullaahi muuse calayhi salaam walaashii ay ku tidhi bal ilmihii yaraa raadi oo meel lagu hadal hayo baldoon kadibna halkaasi ayay u dirtay oo ay tidhi bal orodoo doon ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi isagoo qisadaasi inooga sii warramaya وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت وحي كتري نبي الله موسى يديه لأخته ولاشي وحي كتري قصيه بل رادي أو علمه يرادون فبصرت به وحا أي كاركت علمه يرى عن جنب ميل فق ودركسا أي كاركت يدو علمه يرى الوهيو وهم لا يشعرون iyagoo aan dareensanayn inay gabadhan ag maraysaa ama soo eegaysaa ay tahay ilmahan yar walaashii meel durugsan ama sheedda ilqoodha ayaa waxay ka aragtay ilmihii yaraa oo la hayo markii fircoon gabadhiisii aasiyata bintu musaaxim ay tiri ilmahan yari waxa uu inoo yahay indhakudoogsi waynu korsanaynaa oo waynu haysanaynaa ayaa ilmihii yaraa waxaa loo doonay cid naaskii siisa oo ilmaha yar naaska jaqsiisa oo korisa ilaahayna subxaanahu wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa waxa uu u diiday dhammaan dumarkii boqortooyada joogay iyo dumarkii magaalada oo dhan inuu naasahoodii jaqo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u diiday oo uu ka joojiyey إلهنا وحيري وحرمنا عليه المراضع من قبل وحرمنا وحان أديدني عليه أي على موسى نبي الله موسى وحان أديدني المراضع دمان دمركي الناس كانوا يجني أما الناس هي دنبان أديدني من قبل كهر انتانو هو يدي أتين كدبنا walaashii ayaa ku dhiiratay oo soo dhex istaagtay waxaanay u sheegtay oo ay ku tiri ma idin tusiyaa dad ama qoys ilmahan yar idin hayo oo idin kafaalo qaada oo idin koriya oo uu yeelayo oo u nasteexaynaya ilmahan yar ama idinkaba idin nasteexaynaya oo ilmo yar oo imika dhashay oo naaskii qabsan waayey oo gaajoonaya oo ooyaya dhibteeda iyo culayskeeda ayuu leeyahay kadibna waxay ku tiri faqaalat hal adullukum calaa ahli beytin yakfuluunahu lakum wahum lahu naasixuun ma idin tusiyaa qoys idin kafaalo qaada ilmahan yar oo u nasteexaynaya oo si fiican u korinaya oo ilmahan yar u nasteexaynaya ama boqorkaba وهم له فرعون أما بقرطويدي سبا ناصحون ونستيحينيا أو قيس تي أنكسو هرشيدين أيدي كيدين نستيحاه ما يدين شاقا أي كتر كدبنا والله يري والله كيني المهي يراه يدي بقبصدي إلهي سبحانه وتعالى هو يدي أي أسو عليه طلنا إلهي وحا وقاد إنه أسعلنا أيه إلهينا وحوي فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فرددناه وحا نوعلني موسى إلى أمه هو يدي أي نوعلني كي تقر عينها سيأي أبو إن دوكسته oo ay isheedu ay u qabowdo
ولا تحزن أو آني أمرغون ولتعلم أنؤغاته أن وعد الله حق بلنقاتك إلهي إنو دبيهي أو حقيقيهي إلهي وحو بلنقادي المهي يراء أي وبيغا كتورتي إنو أسوعلين دونه إلهي نوكا أسوعليي أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون لكن تتكبدا كودو مقرنيان إن بلنك إلهي سبحانه وتعالى ونبيهي قصداسي وأيسي سعنيسا إلهي نوينو غسي ورمي دونا سبحانه وتعالى لكن إنتاسي وحا أينو كقادنينا أما محل شاهدك أينو أسو قادني وحويان إن بلنقاتك إلهي ونبيهي أو حقيقيهي وحاو إلهي سبحانه وتعالى وبلنقادانا sidii uu u ballan qaaday uu u dhacayo xataa haddii ay adduunyada oo dhani ka hor timaado in uu ballanqaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhacayo boqorrada adduunyada oo dhani hadday ay ka hor yimaadaan quwadaha adduunka ugu waaweyni haddii ay ka hor yimaadaan ballanqaadka ilaahay siduu yahay ayuu u dhacayaa waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa maalika almuluuk وهو على كل شيء قدير وحوالبه إلهي هو أودا سبحانه وتعالى أوديسا إلهي سبحانه وتعالى فرعون المهي يراي وإسكا إلاليناي وكبقاي إن بقرتو يديسا كقاضو وقلاي إن تاسو أبدا أو مركاسي دا شيء أو قورتا كشري ayaa ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa waxa uu ku koriyay gurigiisii ama boqortooyadiisa iyo qasrigiisa dhexdiisa ayuu ku koriyay korinta uu korinayana waxa uu ku bixiyay mushqaayad iyo inuu mushqaayad bixiyo ilmihi yaraa uu koriyo oo uu ku weynaado fircoon gurigiisa waa qudrada ilaahay iyo awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sida uu quluubta u bedelayo quluubtuna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ku jirtaa gacantiisa allahayna fahansiiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh